Afrique Travel. Avec l'agent de voyage Tempo Afrique Travel, pas de problème de connexion, pas de problème de transfert de vol. Avec l'agent de voyage Tempo Afrique Travel, c'est le voyage en toute tranquillité, en toute beauté, de votre maison jusqu'à votre destination. Votre satisfaction est notre plaisir. Assalamu alaikum kusoo dhawaada raagi show ee si toos idinkaga imanayo Tempo Afrique TV ee ku yaalo magaalada Minneapolis gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka. raagi show barnaamijka maanta aan idinku hayno waxa weeye deegaanka Soomaalida Ethiopia iyo dawladda dhexe Ethiopia xiriirka ka dhaxeeyo ayaan xoogaho warbixin idinka siinaya sida adinku aad u ogsoon tihiin deegaanka Soomaalida wuxuu ka kooban yahay 9 gobol koob iyo 10 gobol iyo degmooyin kor u dhaafay 90 degmooyin. marka deegaanka Soomaalida markaad eegtid ama aad isbarbar dhigtid deegaanada kale ee ka jiro wadanka Ethiopia maxaa lagu guuleystay maxaana wali lagu guuleysanin arrimaha waa inaan idin la sheergareeyaan rabaa maadaama aniguna maxay xogaal aan ka ahay iyo wax meesha ka socdana aan ogahay deegaanka Soomaalida saan aan xoga badan aan ku hayno markay ahayd 1954 qoraal badan aan ka akhrinay in deegaanka Soomaalida u taqaano Soomaali galbeed oo hadda loo yaqaan deegaanka Soomaalida. marka xilliga in boqorka waaga jiray boqor Haile Selassie in Ingiriisku uu ku wareejiyay marka laga bilaabo oo dawladda maxayday boqortooyadii Haile Selassie ilaa iyo dawladda hadda jirto deegaanka Soomaalida muxuu ka faa'iiday muxuusna ka faa'iidin arrimaha waa inaan isla eegnaa waxaan ogsoonahay marka laga bilaabo boqortooyadii ilaa iyo dawladda maanta jirto uu hogaaminayo Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed deegaanka Soomaalida hal mashruuc weyn ama warshad weyn oo laga sameeyay deegaanka Soomaalida ma jirto. marka su'aasha weyn ee maxay Soomaalidu inay isweydiistaan sababtu maxay tahay maxay deegaanka Soomaalida mashruucyo waaweyn oo dawladda dhexe ama dawladda federaalku ay maalgelinayso looga furi lahayd oo shaqo abuur badan u sameynayo shacabka deegaanka iyo dhalinyarada deegaanka ama kuwa wax bartay ama dadka aan wax baranin maxay ahayd deegaanka ku nool ay ka faa'iido lahayn sababta lagu sameyn lahayd maxay tahay su'aasha waa in mar walba la isweydiiyaa. marka waxaan ogsoonahay dawladdii deegaanka Soomaalidu wuxuu jiraaba hadda almost muddo deegaan asagu iskii isu maamulo wuxuu hadda jiraa ilaa iyo 30 sano hadii 30 sano waxyaalo badan oo maxay deegaanku uu ku guuleystaa jiro sida inay luqadooda ay dadka meesha ku nool ay wax ku bartaan ay ku shaqeeyaan dhalinyarada meesha ka soo baxday dadkii meesha ka soo maxay Soomaalida inay ayagu isu maamulaan. marka waxyaalaha lagu guuleystay ka mid tahay in dawladda dhaxana maxay miisaaniyad u qabato miisaaniyadaas oo ah miisaaniyad deegaanka kale maxay lala wadaago oo toos deegaankana siiyo sanad walba taasina mashruucyo yar ee deegaanku maxay laga yaabaa inay ku fuliyaan wadooyin yar iyo biyo qodis iyo waxyaalaha lagu sameeyo. marka waxyaalaha lagu guuleystay ka mid tahay balse waxaad aragtaa markaad dhex socotid deegaanada kale ee Ethiopia sida gobolka Oromia gobolka Koonfurta ama deegaanka Axmaarada ama deegaanka Tigray iyo markaad eegtid waxa ka jiro mashruucyo waaweyn oo laga sameeyay warshado waaweyn oo laga sameeyay sida hadda mashruucyada waaweyn ee u dambeeyay la sameeyay waxay tahay mashruucan la yiraahdo Industrial Park
marka halkii marba maxay ahayd u abuurayo shaqo abuur ka badan shacabka meesha ku nool deegaankaas ku nool shacab ka badan 10,000 oo qof ayuu maxay ahayd shaqo abuur u sameeyaa yani sanadkiiba I think waxaan malaynayaa ilaa 1,000 oo qof inuu shaqo abuur u sameeyo marka mashruucan wuxuu ka jiraa deegaanka xamaarado kale ilaa iyo 3 ilaa 4 baa ka jirto Oromia wax badan baa ka jiro gobolka Tigray uu ka jiraa gobolka Dabuub oo maxay koonfurtana saasoo kale mashruucan meel badan buu ka jiraa marka sababta maxay deegaanka Soomaalida loogu ogolaan waay maxay inkastoo hadda beeri dhow laga furay dirdhabana maxay ahayd dirdhabana ma aha deegaan hoostago deegaanka Soomaalida waa deegaan maxay federaalku ay xukunto oo federal administration leh balse laakiin waxa la isku day hadda Mustafa ayaan maleynayaa mar inuu isku day inuu kala xaajoodo in laga furo mashruuc noocaas oo kala deegaanka Soomaalida markaas la yiri waxaan ka furi doonaa Eeshica ama gobolka City degmo ku taalo Eeshica la dhaho xuduud la leh Djibouti taasina wali mayna suurta galin balse waxaan ogsoonahay marka yani aan eegno warshadahan iyo warshada kale oo fara badan marka dhax socotay deegaanada kale maxay deegaanada kale dalka ka jiro waxaad arkaysaa warshado fara badan baad arkaysaa mashruucyo fara badan oo maxay dawladda federaalku fulisaa arkaysaa oo dad badan ay ka shaqeeyaan shaqo abuur badan shacabkii u sameeyaan arkaysaa balse markaad u soo noqotay deegaankeena ama deegaanka Soomaalida kuma arkaysid waxyaalahan oo kale marka taasina waxay keentay dad xataa shacabka ma aha dad wax bartay jaamacada ka soo baxay oo fara badan oo jigjiga tuban baad arkaysaa marka shaqo la'aan intay ku dhacday sababtoo ah shaqada shaqaalu dhalinyaradu meesha kale ee shaqadu oo furan tahay ay tahay qaablismeedka dawladana miisaanad uma hayaan marka sanad walba in shaqaale badan la shaqaaleysiiyo marka taas keenta marka shaqaale badan inay maxay wadooyinka tuban yihiin ama ay shaqaalayn ku dhacdo marka waxa loo baahan yahay marka yaa maxay mas'uuliyadeeda leh in ay dawladda federaalka kala hadasho arrimahan iyo sababta keentay maxay tahay in deegaanada kale oo hataa waxaan maqlay in laga furay mashruuc noocaas oo kale waa weyn Samara ma maxay gobolka Anfarta ah bal Soomaalidu maxay ku wayday marka marka Soomaalidu waa inay isweydiistaan su'aasha sababtoo ah mashruucayadan iyo mashruucyo kale fara badan ee dawladda federaalku maalgelisaa jiro balse deegaanka Soomaalida marnaba soo gaaraynin sababta keenta waxa weeye cid weydiisaa jirin dawladda federaalka tan kale aan idin sheegayo dhalinyaro fara badan oo maxay Soomaalidu aan idin sheegay oo wax bartay oo meel kasta joogo kuma arkaysid xafiisyada waaweyn ama xafiisyada kale dawladda federaalka ah wasaarada fara badan baa jiro ee komishiina fara badan baa jiro marnaba kuma arkaysid dhalinyaro fara badan oo deegaanka Soomaalida ka socdo meesha ka shaqeeyo balse laakiin deegaanada kale waxaad ku arkaysaa wasaaradda arrimaha dibadda ku arkii xafiiska wasaaradaha ku arki kartaa waxaad ku arki kartaa wasaaradaha maxay waxbarashada ku arki kartaa maaliyadda ku arki kartaa wasaarado fara badan baad ku arki kartaa yani shaqaalaha hoosaadka ee ka hooseeya agaasimada oo meelaha ka shaqeeya marka deegaanka Soomaalida dhalinyaro ka socdo ma arkaysid marka dhalinyaradana markaad la sheekeysatid waxay ku oranaysaa yani markan yani uu meesha u tartanna lama qaataba يعني waxa loo baahnaa mas'uuliyiinta maxay heer federaal ha joogaan ama heer deegaan ha joogaan inay dawladda federaalka maxay culayska ku saarto sidii ay u heli lahayn dhalinyarada Soomaalida ee joogo deegaanka si ay maxay fursad uga lahayn xafiisyada federaalka ee ku yaalo dawladda dhexe ee sababtoo taas waxay keeni kartaa marka dhalinyarada mustaqbalka dambe inay u doodi karaan marka mashruucyadii aan soo sheegnay sidii looga fulin lahaa deegaanka Soomaalida ama xaqii xaq uu ku leeyahay deegaanka Soomaalida ama shacabka Soomaalida say u heli lahaayeen iyo dhalinyaradan ugu doodi lahayd marka deegaanka maxay dawladda deegaanka Soomaalida iyo kuwa dawlad xilka haya iyo kuwa maxay federaalka xilka ka haya waa inay ayagu maxay xilka iska saaraan
dhalinyaro badan ee deegaanka Soomaalida joogto oo ay ka shaqeyso si ay fursadahaas oo kale uga heli lahayn fursado shaqo uga heli lahayn deegaanka dowladda federaalka ah ee Addis Ababa si yani wasaaradaha kala duwan ee shaqo uga heli lahayn waa inay xooga saaraan oo ayna ku mashquulin kaliya dantooda gaarka ah kaliya marka taasaan usoo jeedin lahaa markaan usoo noqono qaybta labaad ee maxay barnaamijkayga wuxuu ku saabsan yahay waxaad arkaysaa dhalinyaro badan oo luqado kala duwan ku hadlayo oo Soomaali ah oo joogto jigjiga oo shaqo la'aan hayso Ahmaari bay ku hadlaan Oromo ku hadlaan iyo Soomaali bay ku hadlaan English bay ku hadlaan jaamacaday ka soo baxeen dhalinyaradan oo kale fursad bay u noqonaysaa marka in yani xiriirka u dhaxeeya deegaankeena ama deegaanka Soomaalida iyo xiriirka federaalka inay maxay xoojiyaan ay hagaajiyaan hadii fursadan oo kale ragga joogo oo wasaaradaha maxay wasiirada ay joogo heer federaal inay fursadan oo kale inay xooga saaraan oo dhalinyaradan siday ku soo gali lahaayeen xafiisyada kala duwan ee federaalka ah sida tusaale ahaan hadaad aragtid Ethiopian Airlines oo kale kuma arkaysid shaqaale maxay dowladda oo kale kuma arkaysid deegaanka Soomaalida ka socda waxaad ku arkay ma jirto laga bilaabo airportka Jigjiga ilaa iyo maxay kan Addis Ababa hadaad tagtid ama wax kale oo ka shaqeeyana ma arkaysid xafiisyada kala duwan ee airportka u leeyahay airline ay leedahay wax Soomaali ka shaqeeya inta badan ma arkaysid marka tan waxay keentay laakiin way jiraan dhalinyaro fara badan oo maxay kuwa meesha ka shaqeeyo ka karti badan ka aqoon badan luqado kala duwan ku hadlo balse laakiin marnaba loo ogoleen wadadii loo mari lahaa dii maxay kan ama walaalka maxay ka hor istaago ama ka bloggereemada martid ma jirto meesha walba marka taas waa inay mas'uuliyiintu arrinkan xooga saaraan fiiro gaarna siiyaan tan kale waxaad ku arkaysaa xafiisyo maxay dowladda federaalka laga maamulo ee jigjiga ka jiro ama deegaanka Soomaalida in general ka jiro ama warshada leerka oo kale bangiyada oo kale qoladan maxay telecommunication ama isgaarsiinta oo kale marka dhalinyarada Soomaalida inkastoo ku ararkaysa halal meesha warshadan leerka ama meeshan telecommunication ama isgaarsiinta dhalinyarada Soomaaliya oo hadda maxay ku soo biiray bal in general markaad eegtid wax inta badan ka buuxo waa dad kale maxay luqada kala ku hadlo marka Soomaalida waa inay fursado noocaas oo kale ay xooga saaraan mas'uuliyiinta deegaanka iyo mas'uuliyiinta heer federaal sidee shaqo abuurkan oo kale shaqaala maxay dhalinyaradan faraha badan ee jaamacadaha ka soo qalin jabiyay oo ka buuxa meel kastood maxay aad martid aad ku arkaysid markaad la sheekaysatina fursad shaqo la'aan jirta ee ku oranayso marka inay xooga saaraan sidii ay shaqadooda ay shaqo ku heli lahayn tan aan usoo jeedin lahaa maanta aad baad u mahadsantihiin marka soo follow up gareeya radio show nagu soo biira dadka kalena share gareeya oo subscribe dhaha marka aad baad u mahadsantihiin assalamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Nouveau à Minneapolis, Tempo Afrique Travel. Vous voulez voyager? Achetez vos billets d'avion à l'agent de voyage Tempo Afrique Travel. Avec l'agent de voyage Tempo Afrique Travel, pas de problème de connexion, pas de problème de transfert de vol. Avec l'agent de voyage Tempo Afrique Travel, c'est le voyage en toute tranquillité, en toute beauté, de votre maison jusqu'à votre destination. Votre satisfaction est notre plaisir.